noloshu waa mid isdhalan rogta hadba ku xiran sida aad u fikirto tilaabadana aad u qaaddo wakhtiga iyo waayuhuba waxa uu ku baraa jihaynta noloshaada fahamka nolosha waa mid ku xiran heerka aqoontaada ay gaarsiisan tahay kaato kulanti wacan oo wanaagsan idilkiiba asxaabta hawada aan ku saaxiibno soo dhawaada barnaamijkan aan maanta rabno inaan falanqeyno wuxuu daaran yahay haweeneydii boqorada ingiriiska ahayd oo geeriyootay 3 maalmood ka hor ayaan rabnaa inaan ka hadalno haddii la yiraahdo waxaa barnaamijka maanta martin ugu ah Cabdullaahi Macalin iyo Maxamed Cabdalla ayaa waa saddex Cabdalla weeyaan ayaa maanta barnaamijka martin ugu ah mudan ayaa soo dhawaada barnaamijka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno haweeneyda boqorada ahayd ee ingiriiska u dhalatay boqortooyada ahayd ayaan doonaynaa ka hadalno bal Maxamed bal waran oo dad badan baa ayaa u taxsiinayay haweeneyda boqorada ingiriiska ahayd dhimatay meel weyn dhimatay bal me horta tirada ma inta jirto waxay dhalatay labada maxay jirtay 97 sano ayay jirtay ayaa la yiri bal waran oo bal waxaad ka ogtahay horta geerida waan maqlayay dadka isdhaxwaday iyo baraha bulshada iyo dadka macnaha qayb u ooyeysa iyo waxyaalo badan baan arkayay haye laakiin taariikhdeeda badan kama hayo waan gartay marka aan kugu soo laabto waa mahadsantahay Cabdullah Maxamed Cabdullaahi Macalin Cabdullaahi bal soo dhawow barnaamijkaasi aan doonaynaa ka hadalno haweeneyda boqortooyada ingiriiska madax ugu sareey ahayd maxaad aqoon ka leedahay maadaama maalmahan ugu dambeysay loo tacsiyeenay waliba dad badan oo Soomaali ah ay waliba u baroorteen aad iyo aad ayaad mahadsan tahay kulley doqodaas waa dhimatay waxa weeyaan waa boqoradii waxay dalka ingiriiska ahayd dalka ingiriiska ayay si walba ugu weyneyd cimri ahaan way ugu weyneyd waa qof waayeel ahayd xagga maartay soldad iyo maamulkan qof boqortooyada boqorkii ahayd boqorka wadanka ahayd anagu marka hadda taariikhdeeda kale iyo wixii ay macnaha intay jirtay waa sheegay inay daahayd 90 xogaa bay ku dhintaan leeyahay waxay ku dhintaan leeyahay laakiin wax hadda naga khuseeyaan inaan ka hadlo anagu oo naga khuseeya waa laba boonti mar inaan ka hadlo kow maxaa kamid ah waa mid ay horta dadka Soomaalida waxa weeyaan aad bay uga hadleen idaacada warbaahinta aad uga hadleen waa gartay tacsiibay dhiibahayeen aad bay u tacsiinayeen tacsiidaas waxaan kale arkay rasuulaha dalka Soomaaliya oo buugi saxiixay ayaan arkay waa gartay marka tacsiidaasi dadku qaar ba sibay u marka u waajaheen oga hadleen waa gartay qaar waxay tacsiiyeen tacsi oo waxa weeyaan iska caadi iyo si maartay aan waxa ku jabnay qaar tacsiidka Soomaalida aan marka aan saxayn bay ka tacsiyeen oo qaar ba xataa u duceynay Allah u naxariisto iyo sheeko noocaas oo kala ayaa bay ku jireen shariic horta aan ka dhaxgalay shariic islaamka ka qabta in qof gaal ah oo diin islaamka aan haysanin in loo tacsiiyo ma banaanto mise ma banaano qodobka labaad wuxuu yahay aan rabnaa inaan diiradda saarno maxay Soomaalida u geystaan manfac iyo madaraba qoftaas horta hadda waa dhimatay intay nooleed Soomaalida marka waxaan ka xumahay dadka Soomaalida ahlu aqoonta ahlu islaamka oo diinteeda waxa weeyaan wax badan macnaha ay ka reebayso haddana qof macnaha marka muslim ahayn u duceynaya oo Allah u naxariisto dhahayaan oo qaar amaanayaan oo wax badan ka sheekeynayaan horta waan aad baan u la yaabay waa gartay waxaan la yaabay waxa weeyaan horta waa koob tacsiida marka la tacsiinayo qofka muslimka ahayn si baa lagu tacsiiyaa waa gartay in haloo ilaahu naxariisto dhihi wax ma banaana waa gartay inuu dadkii maartay ay ka dhintay sabar Allah ka siiyo iyo sheekooyinka noocaas ma ahayn in horta taraxum waa qof muslim ma ahayn إلا حق إله نحرس لوجا بريء. إن قفز مو أهم. وانقرتي. وهذا أبري إله بريء حق دعي. قرآن كوادي قرآن كان وادي. وادي وقرآن كحويان والنبي عليه السلام في الله هذه وحويان آيات قرآن كي قف كانت ضدوات مرحة أو يعني واحد بضن هذا أدعي سحته. مرض مسلم هين ما أنفعسه. وانقرتي. تعاطى وقضى وصماد ومال ما يكون خدمين. ما بك أدعين هي الله. حاجة شرع الإسلام. مكلها الله نحرس. وانقرتي. إليهين. هي. تصح معه. هي. taas waa qodob qodobka kale muhiimka wuxuu yahay boqortooyada ingiriiska iyo annaga maxaa isku nahay horta tamaa qaar kulada luqada wax hadana dhaxeeya calaaqada naga dhaxaysa maxay tahay waxaan isku nahay ku sheegi haye col baana oo maxaa ku ciloonay waa su'aal waxaan ciloonay haye waa horaan ciloonay ko miskala ciloonaysan annagu Soomaali la dhahaa haye annagu Soomaali baana haye waad maqashay ma Soomaali shanta Soomaali in leeyahay waa gartay shanta Soomaali waa gartay shanta Soomaali shanta ayaa sameeyay
متراني اسمه شيء yayna qaybiyey انجليزي yayna qaybiyey shanta soomaaliya sameeyey هو قرتي soomaali ummad waxay ahayd muslima isku caqiida isku duuban geeska africa ayagoo baawarka koobaad leh ummadahan ku xeeran hadday etoobiya noqoto hadday kenya noqoto ayadoo ka gacan sarraysa وما صدق كوسو على وركه محمد waxaan rabaa muxuu ka hadlay Cabdullaahi wuxuu yiri dadka muslimiinta uma banaano in qof aan islaam ahayn loo tacsiyeeyo ma banaano bal maxaa ku jabay in qofkaasi waayeelka ah dal idil xukumay oo boqor u ahaa in loo tacsiyeeyo yiraahdo samir iimaan Allah inaga siiyo maxaad ka qabtaa dhihi lahayd ruux horta hadduu nool yahay ilaahay waa loo weydiin karaa maxaan dhahay inuu ilaahay soo hanuun hidaayo siiyo hanuun iyo hidaayo ilaahay waa loo weydiin karaa waa gartay laakiin ruux hadduu dhinto waqtigii waa ilaahay u dhamaatay naxariisto haddaad tiraa adiga waa ku jirtaa adiga ku jira waa gartay adiga ku jira haye marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaba iyo intii rumayso dhan waa laga reebay waa gartay aayad ka mid ahayd suuratu tawba haye yaa laga reebay انت تدعوهم 70 مره فليقل بيهد آية القرآن taasi way jirtay هاي. استغفر لهم أو لا أو لا تستغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم واقف عادة way jirtay عادة kalena waxay ahayd ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا أن للمشركين يستغفروا للمشركين هيا ولو كانوا أولي قربى marka hadda islaanta ma mushkilad bay ahayd mise islaantani islaan mushrikada ahayd Waa gartay. oo gaalnimo weliba ku daqowday waa yeel ah waa yeel ah waa gartay gaalnimana tinteedu Ehe. ku caddaatay waa gartay marka maadaama sidaa tahay wax iyada dambi dhaaf ilaa la weydiin karaay ma jiraan ma jiraan waa gartay marka ma jirto Okay. iyadoo qayb looma helayo waxaan rabaa wax yar waxaan rabaa wax yar ereyga ahaa macnaha col baan nahay inaan daba galaan rabaa waa gartay horta ingiliishka iyo soomaalida taariikh dheer baa ka dhexaysa oo colaadeed oo calaaq dhexaysa waa gartay soo jireen soo jireen haa waa gartay dhibku noo geysta ingiliishna boqortooyo ingiliish dhibka noo geysteena ee ilaa haddaba dheeqan wax kula jirnaa waa gartay waa midda koowaad waxa weeyaan waa ninka na qaybiyey ee shanta soomaali noo loo qaybiyay qaybiyey haddii Cabdullaahi aan ka dhaxgale markii qof dad la qaybinayo markii la arkay mushkiladooda inay islaayaan dartood ayaa ma loo maya qaybiyay saas Soomaa maaha danihiisu noo qaybsaday waa gartay annaga danteena ma ahayn Danteena ma ahayn. haa Haye. soomaalidu waxa weeyaan ummaddu markay isku duuban tahay oo hal calan leedahay oo hal madax leedahay bay wax noqotaa waa gartay micnaha xaasidnimo iyo cudwaan inoo qabo darteed ayuu qayb dhan oo innagana ka mid ah uu Kenya siiyey Kenya oo dal micnaha aan darisnahay laakiin asaga ingiriishku ay isku caqiidiyo isku mid yihiin ayuu siiyey waa gartay qayb kale oo intaas ka sii badan ma la egnaa Ethiopia raaci Ethiopia siiyey oo ayaguna asaga ay isku dal yihiin oo isku caqiidiyo isku mid yihiin haye oo hoos geeyay qayb kalena waxa weeyaan asaga lug buu ku lahaa waaba la gooyay oo waxa la yiraahdaa Djibouti waaba la jaray iyadoo gaar baa loo jaray iyada dal baa laga dhigay loo jaray haa waa gartay Soomaaliya laftooda gaar buu u jaray iyaga dib ka soo rujuucay ma ahani oo wadaniga Soomaalinimo iyo dad jacayl u soo laabtay ma ahani ayna gaar buu u jaray laakiin hadda way socdaan in yaro waa hadda lafteeda ma in yaro soo koonfurta Soomaaliya ayuu wuxuu yiri in dal baatiin Soomaaliya yiraahdaan waa gartay horta cudwaankaas taariikhda uu nagu reebay horta way nahaysaa waa gartay cudada naga hari mayso waa gartay waa midda koowaad ee uu nagu meystay haye uu nagu meystay waa gartay dalkeenu nabada oo odayaasheena salaadiinteena dadkeenu talinayaan ayuu dekada barag soo degay waa gartay Sayyid Maxamed iyo Daraawiish oo ninka la dagaalamay waa gartay oo kula dagaalamay maxad xorriyad u raadinaysaan macnaha istiqlaal madax banaani maxad ummad sharaf in noqoto oo dagaalamaysaan okay waa mahadsan tahay waan ku wada hadalka wax yar waan ku wada cafwan sayidka Sayyid Maxamed radiyallahu anhu maalinku barag soo degay barbaad maalinku soo degay wuxuu u imaaday asagoo in Ingiliish uu dekad u taagan yahay dekad u taagan yahay haye aad u doorsamay ku bedelmay ka xumaaday waa gartay wuxuu ka imaaday wadamada carabta ka imaaday wax soo bartay buu ahaa haye wuxuu niyooday markaas wuxuu niyooday jihaad buu niyooday iyo inuu halgan bilaabo niyooday inuu halgamo bilaabo walla ninka la halgamo dhagax buu yar buu qaaday waa gartay xalay gaalkii sii jeeda gaalkii inuu dhabarka ka dhuftay dhabarka dhuftay wuxuu ilaahu intaasaan awoodaa waa gartay ilaahu intaasaan awoodaa lamana yaqaano markaas waa kiligii waa gartay gaalku u yaabay oo buu yiri ninku iska baxay xer buu sameeyay dadkii wax baray kadib waxa weeyaan ninkan gadaal kasoo abaabulay waa nin Ingiriis marka waa ninkii nimankaas Soomaalida dabargooyada ku sameeyay ee halgankeeni si walba u naafiyay oo dambaysta ilaa uu tirtiray xataa inaan kasto uu okay barnaamijka iyo sanadada sidoo Maxamed maadaama haweeneyda ay geeriyootay oo hadda horta bal aasim salaam aasay horta waa su'aal isweydiin haweeneyda boqortooyada boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth horta may malaxbal wali misal malaxbal mid waa mid qodobka labaad aan rabnay aan ka hadalno ummadda Soomaaliyeed waxa la yiri 1951
konton iyo kowgii tabaracad iyay keentaa la yidhi Haye. boqoradu haye oo hadda waad arki kartaa iyadoo dad wax u qaybinaysa haye inkasta oo ay suuro xuman lasoo jeediyo oo ay sidii ay ayixi ay wax ugu saydh dhulka ugu saydhayso ayaan arkahayay marka haweenaydaasi ma bannaan tahay in la yidhaahdo maadaama dadka shacabka soomaaliyeed oo hadda oo gaar ahaan bulshada ku dhaqan somaliland oo kale qaarkood ay aad ugu oynahay ugu barooranayeen arrintaasi say kula tahay horta inaad u oydaay oo dhawaaqdaay ruuxa muslimka loo galay in loo ooyo loo dhawaaqo waa gartay laakiin ilmadoo kale iyo macnaha maxaan dhahay ilmadu ma kuma xidhno ruux muslim iyo ruux kale inaad iska ilmaysahay waa gartay macnaha waa qalbigaaga oo ruuxu marxabo ilmadu waa qalbigaaga wax ku jira oo waa gartay naxariis ah waa gartay marka inta badan waxay ku dhacdaa ruux kugu go-ay oo kale ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado ama baabur si xun u maray oo kale markuu jirkaagu arko ilmada siduu waa iska dabiici oo mid aad adigu naftaada ka celin karta ma ah waa gartay markaad hawl si xun u dhacday aad la soo kulanto haye laakiin jacayl aad u qabto dad oydo taas iyadu ma sina kuma noqon karto inaad macnaha maxaan dhahay ruux fayow tahay dad oyday wey okay waad mahadsan tahay mudanayaal barnaamijkii saad ogtaynba maalweyto dowladda somaliland ama dowlad goboleedka miyaan dhahnaa mise dowlad baan dhahnaa jamhuuriyadda madax bani maan dhahnaa markaa aad bay lafteeda ay ugu ololeynaysa inay hadda ay madax istiqlaal ama madax banaani ay siiyaan ayay hadda aad iyo aad u rajeynayeen laakiin nasiib darro way dhimatay waxa weeyaan waa qodobkii aan weli aan ka hadlahayay oo hagardaamadii ay ingiliishku noo geysteen yaa socda ilaa hadda socota Soomaaliland hadda waxay rajo ka qabtaa inay nimanka aqoonsadaan waa gartay oo si waagi meel ay u aqoonsadaan wadan oo gaar u gooyeen ilaa hadda waxay rajo ka qabaan inay aqoonsadaan xildhibaanada shaqeynaya oo intaas ordahay oo in aqoonsi hal la siiyo leh okay waad mahadsantihiin asxaabta hawada nagula saaxiibay barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waqtiga oo kooban marka insha allahu tacaala waxaan maxmed maxaad bulshada kula hadlaysaa ood leedahay ood kula dardaarmaysaa bulshada waxaan ugu baaqayaa inay waxyaalahaas kale iska ilaaliyaan dhammaantood marka aad iyo aad baan u salaamayna okay waa maasada mudane cabdullaahi waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan loo baahnayn hadda in qoftaa loo duceeyo looma duceeyaba duqdaa dhimatay maamadaas asna in loo duceeyo baabkeed ma furna waa gartay waa midda labaade in taruux naxariis iyo jacayl ingiriiska hadda loo muujiyana asagoo ilaa hadda xataa hadda Soomaalidana hadda aan joogno hal xilli casri aan joogno ha maamul goboleedana la qaybiyay macnaha waxa loo wadaa Soomaaliya inay qaybaha ku kala tagto oo shan dawlad lix dawlad macnaha waa gartay lug buu ku leeyahay hadda saab inoo fiican marka ninna hagardaamay maanta nagu soo bilaay ama yoomina nagu wada in hadda maxabayn iyo jacayl iyo loo sameeyo iyo boqoradii iyo kan iyo ingiriiski صح معها عبد الله رالي هو ميسن فيعنين ما دام صومالي اي هشين لأبه او مالك صدق الله بابينايو لو حسوقايو inuu reerkas intii magaalada dawladda ka waxay ka qabtaa tawa meel kale oo maamulkooda ma sax waa ma sax maaha waa baab kale iyadoo laga hadli doonay laakiin aan waxaan ka hadlahayaa un meeshan hadda nimankan ingiriiska iyo waxa naga dhaxeeya oo aan ku soo gabagabeynayo inay xurguf naga dhaxayso taariikh madow naga dhaxayso